marka waxaan sameynaynaa alertigan waxaa loo isticmaalaa idin dhahay markii aad rabtid suuqa trading viewgaaga lacag qiimaha markay ku gaarto qiimahaas OUD kaliya USD aad dooranaysa waxaad leedahay lacagtas markay meeshas marayso kale inaa galaa rabaa isoo ogeysii isla markaas haddii mobile kaaga furan tahay mobileka kaaga soo sheega haddii computerkana computerka alert kaaga sameyn doonaa okay maxaa inoo xigay intaas marka ilan koraa ku soconaa meeshan waxaa la replay replaygaas waxaa isticmaala dadka u gadan tahay oo broga tusaale kale suuqa waxaa sameynaysaa dhexdaan oo kale trailankaaga markaas sas kale suuq u saaratid almost waxaa rabtaa sababta ka dambeysa lacagta inaad jabsatay inaad aragtid mar alla markaas u saaratid halkaasoo kale soo qabsanaysaa halkaasaa kili ku siinay waa jarani suuqu ku jarma hadda aniga wuu noo jarmay laakiin inkastoo aysan free uusan ahayn okay markaasoo kale qofka suuqa falanqaysanaya dadka inta badan okay marka suuqii marka qofka saasoo kale u jaro waxyaaba inta badan loo isticmaalo baashan waxay tahay in lagu fahmo waxa la dhaho backtesting oo kale qofkan inuu ogaado rabaa lacagtan suuqa meesha u socoto ama cashiro kala daawatay cashiradaas oo kale waxay ku leeyihiin lacag saasaas haddii sameyso lacag qaabkaas sameyn doontaa isla markaas qofkii hadhow marka wuxuu sameynaa lacagtii saasoo kale marka u jaro wuu beleegareynaa wuxuu arkaya qaabkii lacagtan rabto inay u socoto halkaasoo kale speedkeeda ka furaysaa hadda suuq isagoo kale u dhaqaaqo way ujeedaa markuu suuqa cusub kale u dhaqaaqo suuqa sababta ka dambeysay uu soo taabtay almost waxyaabaha aan baran doono waxay ka mid tahay sababta suuqan markuu halkan hadda soo taabtay ee hoos ugu daatay maxay tahay waxaa jira waxa la three stage confirmation suuqan dhowr stage confirmation uu sameeyey isla markaas suuqa taabashadii saddexaadna waxaa ka sugaya inuu sii daato uu sii daadan doonaa qaabkaasoo kale marka qofka markuu rabo inuu wax usii fahmo oo isticmaalaa inta badan speedkeeda haddaa sii kordhinayna waa kaasaa suuqii saas uu ordi doonaa replayga saasoo kale kaa caawinaysaa suuq hadda socdoo kale ay kaaga dhigaysaa wixii hore u dhacaa dib u celinay waa fiirinay markaas aa ka soconnaa iyadana okay ka cancel waa ka cancelnay yes replayna qaabkaasaa loo isticmaalaa qaabkaasuuna u shaqeeyaa maxaa inoo xiga marka waxaa inoo xigo waxay habaa isticmaali doonay ka mid tahay settingigana waa meesha settingiga caadiga oo right kliga dhihi lahayd settingi aa ka dooran lahayd intay ku saaran tahay maxaa kaloo noo xigo ayadana waxaa noo xigo waxa la screenshotkaas inta badan waxyaabaha isticmaali doontiin waaye tusaale kale marka ani rabo suuqan oo soo falanqeeyey suuqan markaas soo falanqeeyey aan dhahay lacagtan meesha hebel aadayey lacagta qaabkaas u shaqeyn doontaa waxaa raba qof saaxiibkii oo kale inaa ID-dan la wadaago inay sax tahay inay qalad tahay inuu iga fiiriyo marka saasoo kale waxay ka caawinaysaa screenshotkaas oo kale ku dhufanaysaa wuu kuu sawiraa suuqan shaashadadan hadda ku analyze garaysan kuu sawiraa qofkii hadhow linkigaana u diray linkigaas meesha ku yaala copy aad dhehaysaa qofkii walaalka ahaa u diraysaa isla markaasoo kale saasoo hadda idinku inkugu soo diro kale aa meesha ugu dhex aragtaan idinkugu soo diraa qofka saasoo kale u diraa hadhow shaashadeedaas arkaysaa marka qofkii suuqa saasoo kale usoo falanqeeyey ayadana waa midaas qaabkaasaa loo isticmaalaa maxaa inoo xigo marka geeskaan aan soo galno geeska ugu badan aan isticmaali doono waa marka waxaa jiro qaybta sawirka markaa ku celinaa walaal waxaa samaynaysaa ku dhahay suuqa markaa rabti inaa falanqaysay oo aragti jihadan tusaale kale aad iska dhahno tusaale ka wadnaa wax saxan ma ahan saasoo kale inaa iska dhaho suuqaan oo kale waxaa leeyahay halkaas oo soo taabanaa markuu suuqa halkaas oo kale soo taabto waxaa samayn doonaa waxaa daadan doonaa qofka waxaa rabta waxaan ina la wadaag aad samays halkaas meesha kaamirada ay ku qorantaa ku dhufanaysa tag snapshot aa leedahay keligaas samaynaysaa marka keligi dhahdid screenshotkaasoo kale meesha waxa kusoo baxay waxa loo yaqaano URL-kaas ayadaa koobiyanaysaa qofkiina waa u diraysaa marka koobi aa leedahay qofkii markaa u diri lahayd aad control V aa dheh control V isla markaas qofkiina uu u dirmabo saas hadda ugu soo diri meesha jaadko kale qof walba uu arkaayo uu arkaa markaas hadda waa fahantaa filaa walaal ها أستاذ هذا وما تنتهي sidoo kale okay maxaa inoo xigo marka waxaa inoo xigo messageaad iska tirtiro waxaa meesha ii yaalo okay waxaa rabnaa marka qaybtaa lama caamili doono qaybtan waa soo baranay meesha aad rabto inaad ka dooratid calaamadan ii dooran ama haddii aad rabto mouse arrowga ama haddii aad rabno waay qaybta kale aan rabno waxyaaba inta badan aan isticmaali doono waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano trend line muxuu yahay maxaa loo isticmaalaa wax dhan waa arki doonaa trend line-kan waa waxaan xariiqintaan inta badan inta aan suuqan falanqeyn doono haddii aanan reeg market structure ah zaid u isticmaali doono oo mostly used equipment ka dhex isticmaali doono trading view waay ayadaasaa kusoo dhufsanaysaa meesha ka bilaabaysa kili ku siin doontaa
taasoo kale u saari doontaa isla markaas waxyaabaha inta badan aan isticmaali doono ayada waaye qaabka loo isticmaalo qaabka loo saarto sababta ka dambeyso waxaasoo idil waa qaadan doonaa hadda waxaan rabnaa inaan barano bahasha in la dhaho maxaa la train line haddii aan dhaho train linekaaga lacagta soo saar train line maxaa la dhahaa may dhihi doonto train line waxaa la xariiqintan hadda aan lacagtan saaraa la dhahaa qof walba ila socda saafilaay waxaa loo yaqaan train line waxaa rabaa marka inta badan dadka suuqa oo falanqeeya waxay samaystaan waxaa la dhaho five rate waxaa waa tusaale kale time frame-yada aan rabno inta badan aan isticmaali doono inta soo saarino ha marka waxaana shaashada geeskan nooga muuqdo dhanne waxyaabaha ka isticmaali doono ayadana waxaa samaysan doona waxa la five rate geeska ayadana meeshaasoo kale soo saaran doona geeskaasoo kale soo saaranayna had train line-ka waxaan dhahaa waxa ugu badan isticmaali doono waayo maadaama ay tahay meesha xidigta ku dhufso keliya ku siiso halkaas ku soo gasho ma jeedaa waxyaabaha badan aan rabno inaan isticmaalo halkaas iska sii dhigaa marka la socdo wixii aan keli kusoo siiyo halkaas kusoo darsami doonaan maxaa kaloo isticmaali doonaa waxaa kaloo isticmaali doonaa waxaa loo yaqaan horizontal raygan waa isticmaali doonaa inta badan raygan waxaa loo isticmaalaa ku dhufto maxay tahay ogtaan fiirino tusaale kale lacagtaan oo kale falanqaysatay suuqii walaal codka iska xiran fadlan codka iska xiro hadda qof walba codku waa ka xiray waxa igu soo waa dareemi kartaan sharcigeena ma ahan inaan sameyno waxa la dhahay in dadka codka ka wada xirno marka dhib ma laha codka hadda idinka wada xiray kulligiin qof hadli kara qof iska furi kara ma lahan waxaa sameynayna waa sii wadan doonaa insha allah caqabad yaraa keentay walaal haddaa maqashaan lambar 1 ii soo qora miyay aragtaan codkayga ma ii maqashaan ka wada sorry qofkii ii maqlo kuwa soo qoro okay waa la wada maqlaa maasha Allah waa mahadsantihiin ka sii socona marka okay maxaa inoo xiga markii waxaa jiro application-ka qalab geed kala isticmaali doon oo loo yaqaan horizontal ray inta badan maxaa isticmaali doonaa tusaale kale suuqi haddii aad rabin train line inaad saaratid waxyaabaha inta badan isticmaali doona kamid ah raygan oo kale halkaan saaranaysaa waa soo qabanaysaa halkaas oo kale saaranaysaa suuq waxaa leedahay dhexdaana lagu celceliyey isla markaa suuqii wuu jabsaday wuu soo laabtay qaabkaas oo kale u isticmaali doona sidoo kale waxyaabaha inta badan horizontal rayga u isticmaalna waxaa kamid ah markii aad rabno tusaale kale lacagtaan oo kale suuqan halkaan oo kale oo marayay waxaa rabtaa waxaa ku fakiraysaa halkaas oo kale inuu marayo suuqii nooga soo qaad okay halkaas oo kale suuqii markuu marayay waa jaray yaa la socda markaa jaray suuqii waxaa rabaa inaan ogaado suuqan ma meeshii u socon doonaa ma soo laaban doonaa lacag inaa falanqaystaa rabtaa waxaa leedahay suuqan laba mid haddii suuqan uu soo laabtane halkaana laga celin doonaa halkaan waxaa ka samaysan doonaa waxaa loo yaqaana double top tusaale kale halkaas inuu kasoo kala firayo kale halkaas taabto halkaas oo kale waxaa leenahay one top another one top double top la idin sheegaa waxaas waa marka this is double top qaabkaas oo kale suuq marka rabto inaad isticmaasho raygaas la isticmaalo rayga inta badan waxa isticmaali doona waxa loo yaqaan double top-yada iyo waxa la dhaho double bottom-ska inta badan waxa uu isticmaali doona meesha waa wada arki doonaa waa iska tirtireynaa shaashadan mar kale kanana cancel okay maxaa inoo xiga marka hadda waxaa isla faranay maadaama dhan raygan waa isticmaali doonaa waxa ku dareynaa badhanka ku darsanayna oo five rate-kan inay kamid tahay halkan hadda hal xabaa noogu jirtay train line-kan noogu jirtay hadda maxaa noogu soo darsantay horizontal ray waxyaabaha kale inta badan aniga aan isticmaalaa idin sheegaa waxaa kamid arrow kale waxaa ku tilmaamtaa intoo kale tusaale kale lacagtii markaa falanqayso train line-kayga ii soo qabo okay tusaale kale lacagtii markaa falanqaysto oo train line-kayga saan oo kale u doorto oo halkaas oo kale gaari aa dhaho markaas oo kale waxaa u isticmaalaynaa saas oo kale markaa dhahno waxaa dhahayna lacagtan jihadeeda intee waaye falaarahan oo kale iska isticmaala inta badan waxaa dhaha lacagtaas halkaasay tagaysaa marka halkaas tagto way soo laaban doontaa saas oo kale inta badan falaaraha u isticmaalaa falaartaasaa isticmaala arrowgiskaas ayadana waa ku darsanay
waxyaabaha isticmaali doono intaan oo kale waxaan oo dhan waa aniga ma isticmaali waa ka soconaynaa maxaa inoo xiga marka qaybtan waxa waaye inta badan oo loo isticmaalo waxa waaye tiimamka indicatorska iyo waxaas isticmaalaan anaga ma isticmaali doono waxyaabaha kale isticmaali doono waxaa kamid ah brushka oo kale muxuu kaa caawinaa suuqii inaad ku sawiratid tusaale oo kale corruptionkaas oo kale qof inaad ugu sharaxid aa rabtaa taas oo kale leedahay qaabkaas oo asigana u shaqeeyaa brushka oo kale waa isticmaali doonaa igu dara calaamada rectangle-kan oo kale waa iska isticmaalaa inta badan rectangle-kan laakiin ujeedo saas u weyn aan u isticmaalo ma jirto laakiin marka wax sharxa iyo waxaas oo kale iska isticmaalaa waa iskaga darsanaynaa waxyaabaha inta badan aan isticmaalo waxaa kamid ah eclipse-gaas oo kale eclipse-gan oo kale waxaa u isticmaalaa eclipse-ga muxuu yahay eclipse waa wax oo inta badan qaybtan wixii ku jiro dhan waa waxyaabo oo editing loogu talagalay marka wax in qurxisatid oo rabtid oo kale tusaale oo kale waxaa rabaa inaad dhaho trailine-kayga halkaas waaye qofku waxaa rabtaa inaad u tilmaamto trailine-ka inta taabasho lagu sameeyo kale eclipse oo kale isticmaala halkaas oo kili ku siiya taasaa dhaha halkaas waa la taabtay trailine-kayga tusaale kale halkaas waa la taabtaa dhaha sidoo kale waxaa dhahaa trailine-kayga halkan oo kale waa lagu soo taabtay 3 taabasho haya qofka inaad ugu muujiso sidoo kale iyo ama inaad adigu ku fahantin kartid oo suuqa aad sharaxanaysa inta badan u isticmaalaa adiga oo u isticmaali kartaa direct oo iska dhaafi kartaa this is optional aniga waxaa isticmaalay kamid tahay maxaa kaloo ku jiro meeshan oo kale ka fiirinaynaa no editing waa ka soconaynaa waxaa kaloo isticmaalaa meeshan textiga qoraalada waa isticmaalnaa waxaa u isticmaalaa qoraal tusaale kale qofkii marka halkan oo kale inaad u sharaxid aragtid halkaas ku dhufanaysa waxaa leedahay this is impulse halkan waxaa suuqa u sameeyo waxaa loo yaqaano dhaqaaq dhaqaaqiga kale halkaas u dhigaysaa qofkii ku fahansiinaysaa haddii aad rabtid lambarkeeda inaad weyneysatid meeshaan ka weyneynaysaa la 8 bold haddaa rabtid inaad ka dhigtid haddaa rabtid italic waxyaabaha inta badan aa faras kusii fahmi doonto qofka markuu zaaid usii isticmaalo waaye impulse oo kale qoraalkaas textiga waa isticmaalnaa ayadana wax ku darsanayna waxaa loo yaqaan favorite way noo soo gashay wax walba aan soo doorto waxay ii soo galaysaa liiskaas ka wada soconno inaa ila wada socotiin aan rajeynaa okay waxyaabaha kale isticmaala waxaa kamid waxaa loo yaqaan geedan call out-ka inta badan oo kale waxaa u isticmaalaa suuqyada asharaxa inta badan fiiriya tusaale kale markaa suuqiisaan dhahaa oo kale halkaas oo kale taabto ama halkaas oo kale aad saas u geysto haddaa rabtid text waa isticmaali kartaa haddaa rabtid isticmaali kartid waxaa dhihi karnaa halkaas oo kale inta ku dhufto saas oo kale dhahaa waxaa dhahaa correction meeshaan suuqa wuxuu kaga jiraa waxa loo yaqaano correctionkana muxuu yahay qaabka u shaqeeyaa waa isla fahmi doonaa ay hor dhicina qaabkaas oo kale u isticmaala call out-ka marka halkaas ku dhufatid qofkii ugu tilmaamay tusaale kale qoraalkan oo kale inta u dhex dhigtid wax kaaga jaartay kaaga dhex qasmo mukadiis qaabkaas oo kale u isticmaalaa inta badan waxaa u isticmaalaa taabashooyinka aa filayo kale waxaa dhaha suuq halkaas markuu gaaro taabasho hebel ka sugaa taabashadaas touch expected iyo waxaas iskaga soo qoraa ayadana waa isticmaalaa waxa ku darsanaa favorite-kayga waa igu jirtaa maxaa kaloo isticmaalaa arrowskan oo kale waa isticmaalaa falaarahan weliba waxaa ka isticmaalaa tan oo kor iyo tan hoos ka isticmaalaa tusaale kale suuq markaan oo kale waxaa dhaha halkaan oo kale dhigaa waxaa dhaha suuq halkaan taabashuu ka sameeyey waxaa kaloo sameeyaa waa kana ayadii soo dooro halkaana taabashuu ka sameeyey waxaa dhaha kale halkaan oo kale taabasho kaloo ka sameeyey trailine-kayga ayadana waa isticmaalaa arrowskaas inta badan laakiin halkaas ma kusoo darsid laakiin halkaas ka doontaa falaarahaas haddii u baahtid meesha ka doonan doonto waa kana suuqa tusaale kale hoos markuu kaaga soo taabto waa kana halkaana ku dhufanaysaa kalarkeeda baashan kusoo baxaysaa ka bedelinaysaa maadaama suuqa halkan hoos selo kasoo aaday halkan selo kasoo aaday halkaana selo kasoo aaday sooma marka suuqa qofka inaad u tilmaami karto inta marka suuqa soo taabto bayo aaday kalarka cagaarka dooro maadaama salkana guduud uu tilmaamo baygana uu tilmaamo cagaarka haddii kalarka inaad ka bedelid aragtidna ayadaa ku dhufan doontaa isla markaasna waa arkaysaa waa kana kalarkeeda okay let me see may almost kuwan waba iska diyaarsan yihiin textkeedooda okay maxaa inoo xiga marka kuwan waa kuwa kalarada inta badan laga bedelo kuwan waaye kana ka bedeli kartaa gaduudaa ka dhigane cagaaraa ka dhigane buluugaa ka dhigane jaalaa ka dhigane mar walba mid kale hal mid ogaaw wax walba oo trailine-kaas markaa ku dhufto kalarkeeda markaa ku dhufto bob upkaasa kuu soo baxayo oo qaabka u util garaysan lahayd tusaale kale trailine-kayga markaa ku dhufto halkaan oo kale butaca ugu dhiganaysaa cabrideeda halkaan kaga bedelanay hadda caateeno ahayd haddana waxaa ka dhiganay wax muuqdo oo qof walba uu arki karaa ka dhiganay haddii aad kusii dhufto kalarka waa ka bedeli karaa jaalo kale ka dhigan karaa taas oo kale ka dhigi kartaa tan oo kale ku dhufanaysaa mid walba aad ku dhufatid meesha aad ka modify garay lahayd ka dhid garay lahayd wax ka bedeli lahayd halkaan ku noqonaya jaalo nooga dhig kalarka ugu weyn saaska ugu weyn nooga dhig okay maxaa kaloo ka rabnaa kalon alla waxa la jiro haddii rabto ayadan inaad koobiyeysid oo mar kale aad sawirin aad rabtid calaamadaas ku dhufanaysaa switch am right click inta dhahdo kalonka lagu sheego waa kana dag hal xabo kaloo kaaga samaysan mujeedaa ayadii soo qabso halkaas oo kale saaro afkaan ka soo qabso halkaas oo kale saaro haddii amar laad inaad sawirin aad rabin waa inta badan aniga waa iska sawirtaa
okay maxaa inoo xigo intaas oo kale markaa marayno arrowskan waa aragna qaabka u isticmaalayno geesahaas oo kale inaan usoo saarano maxaa inoo xigo oo qaybtan ka isticmaalayno wax kale ma ka isticmaalno waa ka soconaynaa inta kale imaano intan waxaa ku jirto waxa loo yaqaano waa arki doonaa qaabkay u shaqeeyaan iyo waxaan tusaale kale marka aad suuqan waxaa leedahay intaas taabasho ii sameeyo kale marka aad inaad fiirisid marka suuq feesyadoo kale iliid waveka oo kale marka isticmaalaysid sidoo kale 1 2 3 touchka inta taabasho suuq kuu sameeyo markaa fiirinaysid waxyaabaha inta badan head and shoulderka lagu sheegayo kale waa arki doonaa maxaa la head and shoulder wax saas u egaa la dhahaa oo saas oo kale u eg qof walbana hadhow uu la tacaamuli doono suuq markuu geedaan oo kale sameeyo muxuu sameynaa intuu u socdaa jihada uu aadi lahaa halkee ka filaynaa markaa dheheen oo kale waxaa loo isticmaalaa qaybtan intaan badan qaabkan isticmaala ku arki doonaa laakiin hadda wax favorite ugu darsanayna ma lahan waxyaabaha isticmaali doona waxaa loo yaqaan longi iyo shortigan labadana kamid su'aalo kale longi maxaa waa suuqa markaad ina buy u socotid suuqa markuu halkan maraayo kale halkaas markuu hadda maraayay suuqa qofka inta u galaa maxaa u naqaanaa suuq qaybta markuu aado hamar qoraalka igu soo qoro suuqa markuu inta aadayo longi miya mise waxa waaye waxa loo yaqaano short position waaye markuu suuqa halkaas uu u socdo inta qofkii ka soo galo ilaa inta u soo raaco suuqa maxaa loo yaqaanaa qofkaas ma longi ugu jiray mise short ugu jiray okay diin xuseen wuxuu dhahay short waa sax short waxaa laga wadaa xala soo qaadanay haddii aad aragtaa ku dhaas sell waxa loo yaqaano oo suuqa sell garay suuqan iibso haddii aad aragto suuqa ayadoo la dhahayo waxa loo yaqaano shorti hoos u soo gal haddii aad aragto ayadoo la dhahayo suuqan waa bearish waxaa laga wadaa inta badan saddexdaas waxa hadda ku sheegay dhanne waxa waa waxay kala macno tihiin suuq jihadan u socdo waa suuqa jihadaas u socdo jihaha hoose suuqan oo kale waa suuqan waxa loo yaqaano asigana waa shorti waa suuq hoos u socdo kan waa suuq hoos kale u socdo halkan waxa loo yaqaano correctionkani waxaan qaabka u shaqeeyaan waa arki doonaa hor dhacayna marka waxaa rabaa inaan ila socoto in kale inaan fahmo halkan waxa loo yaqaanaa sell hadaa aragtiin short waa la dhahaa hadii kale waxa loo yaqaanaa saddexdaas magac baa asaas kale bearish waa la dhahaa tusaale kale marka suuqii oo halkan uu ku marayo saddex taabasho akor ka haysatid oo hoosna laba taabasho kale ku sameeyay waxa ka filaynaa wax la dhaho suuq inuu sell aadi doono marka si uu sell u aado adina trade ugu qaadatid waxa isticmaali doona baashan loo yaqaan shortiga ayadana noogu dar hore noogu soo darsantay longigana waxa suuq buy u raac waay marka shortigan kale isticmaalayso ku soo dhufansanaysaa halkaas oo kale dhiganay suuqa waxa la saddex taabasho ii sameey halkaan oo kale ka soo raaca suuqa geedas gaduud akor u jeedin waxa waa stop loss ki waay meel walba oo gaduud aragtin meeshan kalena hal mar in kaga dhig waxa loo yaqaan cagaar saa u fahantaan saas dadku yaqaanaan okay aan dhaho saas tusaale kale suuq waxa leedahay halkaas ka soo galaa cagaarkan ilaa suuq ilaa inta inuu soo raaca rabaa weynayso ilaa halkaas inuu soo raaca rabaa suuqa halkaas marka ka soo gasho ilaa halkaas qaybtaas guud waxa loo yaqaan stop loss kaaga tusaale kale suuqa jihadan inuu isoo aada rabaa mar aad markuu jihada inuu isoo aada rabaa hadii uu khilaafo suuqa gaduudka intaas la eg igu ogolaa suuqa inuu iqsaado tusaale kale suuqan hadii halkaas ka sii aado halkaas oo kale suuq ama isla gaaraysin halaas markuu ka baxo isla markaa suuq uu ka bixinaadi inta inta uu ogolaato suuq inuu ku qasaarto inta badan loo dhigto stop loss lagu sheegay iyo take profitka waa qaybtan cagaarka ah tusaale kale suuqan hadda intuu soo daato intuu cabirayna suuqan hadda intuu soo daato waxa waay hoostaan fiirnay wuxuu soo daato waxa loo yaqaan 2278 bip oo soo daato suuqan ninkii ka faa'iideysto waxa waay xogaa wax fiican uu ka helaa marka uu yaraata ninkii ku galay lot loteno kale ninkii ku galay waa $1 wuxuu ka haystaa $2278 oo ka haystaa ninkii suuqan intan soo raaco kale ninkii ku galay kale waxa loo yaqaan ladwan oo u dhigma $10 wuxuu ka haystaa $22780 oo kale ka haystaa marka inta badan take profitka iyo stop losska suuq marka aad in hoos u dhigatid waxa loo yaqaan waxa isticmaal doontaa shortigan oo furanaysa suuqa marka hoos inuu u socdo aragtid calaamad ugu badan isticmaal doona short waa ku dhufanaysa suuqa soo saaranaysa okay hadii aan raadino lacag kale oo aan isleenahay buy aadaysa euro kaado kale afiiriyo okay euro kaado kale qofkii wuxuu sameeyay trailankiisa soo dhigtay wuxuu ogaaday lacagtan waa iska dhigaya laakiin almost sharciyada iyo qaabka loo dhigo waa intuu doona trailanka iyo sababta uu isticmaali doono tusaale kale waxa ogaatay trailankaagi waa la jabsaday suuqa kale u sii socdaa markaas oo kale waxa sameeysanaysaa suuqa markuu soo socdo waxa loo yaqaan ayadana waxa loo yaqaan ishak waxa loo yaqaan isoo qor idinka arkay long sax long yaa loo yaqaan suuqa maadaama kii hoos markuu suuqa u socdo short loo yaqaan sidoo kale waxa loo yaqaan waxa la dhahaa bullish inta badan sida hadaa idin sheega call out kaas u isticmaalnaa in wax qof ku qoro suuqan oo kale waxa loo yaqaan longi waxa loo yaqaan buy waxa loo yaqaan bullish loo yaqaan saddexdaas waxa hadaa aragto suuq jihada kor u socdo intaas magac uu leeyahay suuqa hada hoostan u soo socdana asana the same way waxa loo yaqaan suuqa marka hoostan u soo socdo
asina waxaa loo yaqaanaa short, waxaa loo yaqaanaa sell, waxaa kaloo loo yaqaanaa waxa la dhaho bearish. saddexdaas magacana waxaa iskale suuqa markuu sell u socdo hoostaas u soo socdo, suuqa markuu kor u socdona magacyadaas uu leeyahay. waa mahadsantihiin, waa isla soconaa fila. okay, suuqi markii qofkii intaan ogaaday suuq halkan oo kale qofkii inuu ka raaco marka hore wuxuu isticmaali doonaa waxa loo yaqaan long position-kan, halkaas oo kale aad dhiganaysa meesha kasoo jabso suuq halkan mu ahaa ilaa intee rabaa inaan u raaco ayadana kalarka nooga bedel. okay, markaas qayb walba oo cagaar haddii aragto waa faa'iidaadii, wax walba gaduudna waa khasaaradaadii. suuq waxaa ogolaana leedahay intaas inaan ku khasaaro, suuq waxaa rabaa ilaa halkaas inaan u raaco oo faa'iido ii noqoto. suuqii intaa ka geli doonta meeshaas lambarkaas ay ku qoran tahay waa entry point-gaaga. entry point maxaa la dhahaa waa kana meesha lambarkaas ku qoran oo geeska inkaga muuqdo oo ku qoran tahay 1.47 hal eber, waxaa loo yaqaan meesha suuq ka gali leedo. suuq markuu halkaas soo gaaro halkaas ka galaa khasaaradeedina saddexdan lambar oo meesha ku qoran waxaa u isticmaali doonaa MetaTrader 4-keena markaa fahmayno. MetaTrader 4 markaa gaarin opposition aan rabno inaan qaadano suuq aan galno qaabka application-ka ka gali lahayn qaabka ugu shan lahayn saddexdan lambar waa arki doonaa. waa mahadsantihiin. maxaa inoo xigo kale marka intaas mariin. okay, waxaa qaadanaa hadda qaabka loo isticmaalo sidoo kale waxyaabaha inta badan aan isticmaalo waxaa kamid ah waxa loo yaqaano price pattern-kan aan ku laabto waa kana price pattern la dhahaa. muxuu isticmaalaa dadka inta badan waxaa isticmaala oo market strategy ku trade gareeyo. dadka intooda badan dad indicator ma yaqaanaan waxaa u isticmaalnaa suuqan oo kale suuq jaha fiican leh aan fiiriyo catch CHF oo kale catch CHF taqaana waa Canadian dollar-ka iyo lacag Swiss franc-ga. tusaale kale suuqan oo kale qofkii suuqan oo kale arka wuxuu leeyahay suuqan wuxuu soo sameeyay waxa la dhaho dhaqaaq inta wuxuu ka gala correction kaas wuxuu saaranayaa calaamadii trend line-ka. markuu trend line-kiisa saarto wuxuu leeyahay suuqan jiha waxa kasii suganaa inuu isii daato, maadaama inuu jiha kusii daato qaabko igu daadan kara kasii fikray waxa u isticmaala price pattern-kaas. halkaas oo kale suuq halkaas oo kale soo jarana markaa soo jarto waa soo qaadana halkaas dhigana waxa leeyahay suuqaas oo kale igu sii dhaqaaqi doona ilaa inta saar waa inaan kasii faa'iideysto. price pattern-ka waxaa loo isticmaalaa in suuq aad kusoo jirto suuq tusaale kale backtesting markaa sameynaysa. backtesting waxaa la waxa suuq hore u suubiyay inaad fiirisid mar walba aaraj fiiraa noqda. okay, wax walba oo suuq hore u soo suubiyay inaan aragno markaa rabno waxa u isticmaali doonaa price pattern-kan waa soo jaranaynaa. tusaale oo kale suuqa fiiri suuqan oo kale muxuu sameeyay dhaqaaq wuu soo laabtay wuu dhaqaaqay wuu soo laabtay wuu dhaqaaqay wuu soo laabtay. waxaan waxa u naqaanaa waan baran doonaa waxa loo yaqaan correction la wax walba oo suuqa halaas lagu dhex celinayo waxa loo yaqaan correction. suuq meelaha laga trade gareynin waa inta badan oo iska dhaaf oo banaanka ay ka noqon sababtoo ah marka halkaas kol u gashay marka ilaa halkaas oo adiga khasaaro kula soo aadaa haddana halkaas marka suuq inta badan meelaha aan ka trade gareyn doonin waaye sababta u trade gareynaynin waa arkeena. okay, maxaa inoo xiga marka price pattern-kan ayadana waxaa sameynaynaa price pattern-ka jeega noo saaray. okay, wax walba aan suuqan ka isticmaali doono waa intaas. hal shay kale noo dhiman oo loo yaqaan rollerkan oo kale. rollerkan waxaa u isticmaalnaa tusaale oo kale suuqan waxaa leedahay ilaa intee bib ka idin sheegaya waxaa rabta maadaama aad rabto suuqan inaad ku xisaabtantid ilaa intoo bib u dhaqaaqay intoo soo dhaqaaqay intoo dhaqaaqi rabaa markaa rabto inaad fiiriso kale. suuqan oo kale hadda halkan candle oo san u dheer oo kale intoo bib u dhaqaaqo kale markaa rabto inaad fiiriso igra noqdo hal daqiiqo. okay, igra noqdo mar kale waxaa rabaa marka inaan cabiro ii sheeg suuqan halkan candle intaan la eg ilaa intee u dhaqaaqa bib inaa awaad rabtaa. masaladadan isku soo qaado symbol meesha candle-ka afkiisa kasoo bilaabaysa waxyaabaha inta badan in sheegaya u isticmaalo waxaa loo yaqaan cross-kan waxay kamid tahay afkaas oo kale ku aadina ujeeda jaa hore kasii fiiri karta meesha ku aadan yahay laakiin marka isticmaalayso waxaa loo yaqaan arrowga ma ogaan kartid meesha aad saaraysa ilaa saas ina u aadisid maaha. inta badan waxaa iska isticmaalaa calaamadan loo yaqaan cross-ka. kadib masaradaada soo qaada halkaas ku dhufanaysaa ilaa halkaas oo kale suuqan ilaa intoo biiba soo dhaqaaq. suuqan wuxuu soo dhaqaaqa calaamadan guduud meeshan lambarkan hoose la fiiriya oo geeskan ku qoran tahay 1659 bib oo soo dhaqaaq
1659 bib oo suuqan soo daatay dhanka wuxuu soo aad loo yaqaan short ama sell ama bearish ninkii tusaale kale suuqan halkan ka soo raaci lahay oo ilaa inta uu soo raaci lahay haddii uu ku galo lodka loo yaqaan 0.10 wuxuu ka heli lahaa 1600 ninkii ku gali lahay lot 10 lot 1 oo kale ku gali lahay wuxuu ka heli lahaa $16,000 marka waa kaas bibka qaabka loo cabirto waxa isku dhisanaysaa lodka aad ku gashay iyo inta bib ku dhaqaaqi rabo kale waxyaaba inta badan la isticmaalay ka mid tahay ayadana inta ka fiirin doonaa kan oo kale waa zoom halkan dhalo kale inaad soo zoom garisid markaas uu calaamadaysan asoo weyn ku soo noqonaya ujeedaa hadda aragtana iska celinaysaa saas iska yareynaysaa iska zoom gareynaysaa kana marka iska yareynaysid waaye intaas iyo calaamadan delayda isticmaalna ayadana sidoo kale meeshaan badana ku yaal oo lacagta in iska qaris sidoo kale marka aragto shaashada in wax ku sharaxaad sidoo kale taas iska qarinaysaa ishaas ku dhufanay isha ku dhufanay hadda saas u saaranay tusaale kale shaashada in wax idin kugu sharaxaa rabaa brush wax iskaga falaadno mar aadamkaas iskaga falaadno lacagtii maadaama in qasi lahayd oo kale waa iska tirayna lacagtii oo soo ogolaanayna in meesha ku falaato kale waa isla hayna ilaa hadda waxa ku jirnaa waxa fahmayna environmentigii waxa loo yaqaan trading view-ga iyo qaabka u isticmaalayna waxyaabaha aan ka isticmaal lahayn waa kana waxaan soo dooranay intaan shay aan soo dooranay waxa ugu hore waxa loo yaqaan trend line-ka muxuu yahay waa waxa ugu badan aan isticmaali doono marka suuqan falanqeyn doono inta barashiis ku jirno shayga ugu badan inta badan isticmaali doono noqon doona shaygan waa la mid arrowgaas waa la mid brushkaas oo kale waa la mid marka wax sharaxan doono u badannahay rectangle-kaas oo kale waa isticmaali doonaa waxa loo yaqaan eclipse-gaas waa idin shay waxyaabaha loo isticmaalo kale tusaale kale qofka marka aragtid inaad ku tustid suuqa trend line-kaaga inta taabasho ku sameeyo kale inaad ku tustid marka aragtid oo kale inta badan loo isticmaalaa saas oo kale marka dhahaysid iska waa fahnay calaamadan tiida ku qoranta waa text qoraal in qofka meeshan ku qorto marka aragtid inta iska leedahay dan qoraalkaaga halkaas oo ka soo baxa qofkii meesha ugu muujinaysa kana call out-kii asana qoraalkii oo waxa flash halkaas oo kala geeni halkaas qofka uu qoray qofkii marka waxa sameynay calaamada halkaas soo fiiri waayo okay waad la haynaa ayadana maxaa inoo xigi doona marka waxa inoo xigo waxa loo yaqaan trading view waan aragnay qaabka loola macaamilo iyo qaabka uu shaqeynayo iyo inta badan waxa uu isticmaali doono waxa inoo wixii waxa loo yaqaan inaan fahanno waxaan meeshan ka dhex muuqdo maxay yihiin waxaan meeshan ka dhex muuqdo inaan fiirinaa rabnaa okay waxa ka hormarsanayna waxa loo yaqaan candlestick maxaa la candlestick waa soo baran waa waxa loo yaqaan shaxan ku tusinayo suuqa meesha uu u socdo hadii ay buy tahay iyo hadii ay sell tahay waxa ku tusinayo waxa loo yaqaan candlestick oo kale candlestick soo egahay waa kana candlestick aan kaga sheekeynay waa kana shaashadeen hortiina yaala si fiican u fiiriya candlestick oo kana waa ka wageedaas cirfida madaxyada leh hoos ka babanaan marna cagaarkaas marna guduudkaas hal mid ogaa mar walbo candlestick waxa la rabaa inaad si ogaan karto suuqa marka saan oo kale xaaladan oo kale ku jiro waxa u naqaanaa correction sababta loo dhaxno arki doontiin laakiin hadda waxa ka baranayna waxa loo yaqaan candles waxa la lahaa marka candleka guduudkan uu yahay waa candle tilmaamayo suuqan inuu yahay buy suuqan inuu yahay sell suuqan ku sell yahay candle waxa sameeyay guduud dadka sellerska oo suuqan lacagtan iibsanaya suuqa awood ku lahaa mar aadamkii awoodii laga wareegay suuqan waxa la wareegay dad loo yaqaan buyers calaamada candle noocaas oo kala sameeyay oo blue gas ama cagaarka haduu halka aad u taqaanid isla markaas hadana suuq waa laga wareegay nimankii candlestick hadaa maqashid waa waxaan arko shaxanka lagu sheegay oo ku tusinaya qiimaha inuu suuq yahay buy inuu sell yahay hadda suuqan wuu xiran yahay caaw market kala soo caaw suuq wuxuu furmin doonaa waxa loo yaqaan 6 saac wuxuu furmin doonaa ii sheeg 6 saac iyo 40 uu furmin doonaa ilaa 6 saac uu iska furmaa laakiin si xoog leh wuxuu ku furmi doonaa xilligaas hadii ilaahay la gaaro hadii ilaahay na gaarsiiyo marka hadda suuq wuxuu ku xirmay asoo furan asoo sii socod candle loo yaqaan sell candle kan wuxuu ku tusinaa suuq inuu sell yahay candle kan wuxuu ku tusinaa inuu suuq buy yahay suuq markuu buy yahay adina walaalo buy u gal calaamadaadii ka soo qabso oo loo yaqaan longigaaga halkaas oo kala dhigo halkaas oo gal tusaale kale dadka inta badan waxyaabo khasaari waxa kamid suuq inay khilaafaan adoo suuq candle u jeedid inuu socdo sell buy inuu socdo kale suuq inaa sell ku gasho kale ku khasaaraysa markaas oo kale suuq iyo sell ku socdo arkoosid inaa buy ku gasho kale suuq waa ku khasaaraysa markaas oo kale marka suuq mar walba saad u khasaareen استراتيجية قاف الله فن خسي وحاسو دم قادم دونا لكن مر والب waxa ogaan doona candles kan isku soo xixigay waxay tilmaamayaan suuqan inuu ku soo socday waxa loo yaqaan short ama sell aadaha ama aadaha waxa loo yaqaan bearish flag bearish aadaha intaas waxay tilmaamayaan suuqan inuu ku soo socday waxa loo yaqaan sell suuqan ku soo socday
suuqan candleskan san isugu xigay kor aada ayagana waxay tilmaamayaan suuqan inuu ku socday waxa loo yaqaano buy tusaale oo kale candleska hadda ku wareertid oo kale jartkan oo kale sawirano waxa loo yaqaan rectangle-kan kalarkaas aysanayna waxay noqonaysaa gaduud dhexdiisana waxaa nooga dhigtaa gaduud kale isla markaasna tiq nooga dhig si uu ugu muuqdo waxa la dhaho okay waxaa iisoo dhexgelisaa calaamadan oo kale ayadana waxaa nooga dhigtaa kale okay cadaan nooga dhig yaraan noqdo mar kale okay waa mahadsantihiin tusaale oo kale marka waxyaabaha cadda in sheega waxaa ka mid tahay candlekan oo kale tusaale oo kale suuqan waxaa ujeednaa suuq haddii aa aragtid inuu madaxaas oo kale awood ka leeyahay oo afkaas oo kale weeg uu ka yahay suuq wuxuu ku tilmaamaya inuu sal kusii socon doono kale tusaale oo kale waxaa sii abuurmi doono waxa loo yaqaana candle kale oo kusii socon doono salka sii tilmaami doono saas oo kale sorry oo saas oo kale usii socon doono mar alaala markaa arkayno candle oo madaxiisa uu fiiq hadduu hoos ka leeyahay suuq wuxuu ku tilmaamaa in ilaa hadda awood ay ku leeyihiin dadka loo yaqaano sellers oo dadka suuq iibsanaya in ilaa hadda awood ku leeyihiin tusaale kale candlekan oo dhamaystiraya waa ujeediin haddii marka suuqa in lagala wareega dadkaas inaa ogaatid aa rabtid waxaa sameynaynaa isla candlekaas oo kale sameysanaynaa halkaan oo kale geynaynaa suuqa dadka waxaa dhihi doonaa viruska la wareegaya markay viruska la wareegayaan waxaa sameysmi doona suuqa halkaan oo kale week kasoo halkaan oo kale maraya mogtahay mar alamku halkaan maraya wuxuu sameyn doonaa wuu fiiqmaa halkaas oo ka bilaabana mar alamku halkaas u jihaystane waxaa la wareegay suuqa loo yaqaan dadka sellerska loo yaqaana la wareegay asigana kalarkiisa aan siino cagaar ka dhigno suuqa waxaa la wareegeen dadka sellerska buyerska la wareegeen taasoo kale sameysmaa mar alaala markaa arkays kana noo kalaray sorry mar kale mar alaala markaa arkays candle haddii oo hoos saan oo kale markuu candleka hoos ka yahay oo madaxaasna uu ka dhamaystirin full uu ka yahay hoos wiiga la meeshan qaybtan waxaa loo yaqaanaa wiig suuqa marka halkan waxaa waaye fuulka candleka iyo magacyadiisa wixii lama baran doonaa si u shaqeeyaan laakiin waxaa idin tusaya suuqa markuu sel kusoo socdo kale wiigaas oo kale sameysmo suuqii micnaheedu waxay la macnanta sel kusii socon doonaa ilaa hadda halkaan sel kusoo socdo suuqii waxaa awood soo galay niman la dhaho buyers awooday suuq ku yeeshteen isla markii suuqii halkaas ku socdo way jiheynayaan way gediyeen calaamadda wuxuu sameysmo cagaarkaas oo kale isla markaas oo kale markuu madaxaas kale sameysmo that means inuu furmo waxaa laga rabaa candle kale oo asiga lamid oo kale oo inuu sameysmo oo suuqa buy kusii socon doono oo asiga mataankiisa oo sii dhamaystirayo halkaas oo kale kusii socon doona haddii asiga sii dhamaado suuqa inuu buy kusii socdo ee tahay mid kale sii sameysman doono taasoo kale usii sameysmi doona suuqa taasoo kusii socon doona waxa hadda ujeedaan caawdan idin sharxayni ayagoo run ahna waa kana aan fiirino tusaale kale halkaas halaana soo zoom garaysanayna no sorry calaamada zoomka soo qabsano waa kana halkaan aan zoom garaysanayna halkan maxaa ka aragnaa suuqan wuxuu ku socday buy halkan la kala soo dhex galay haye suuq muxuu sameeyay maxaa idin dhahay mar alaala markii uu madaxiisa saan oo kale yahay wuxuu ku tilmaamaa tusaale kale hadda madaxa fiiq intuu ka leeyahay hoos oo kale fiiq dheer hoos ka leeyahay waxay tilmaamay candlekan hadda xirmay candlekan time frame ka aad joogno hal saac candlekan wuxuu la macnayaa hal saac soo socday candlekan halka saac soo socday ee dadka suuqa ay awood ku lahaayeen loo yaqaan sellerska oo madaxaas dheer maadaama uu sameystay waxay tilmaamay in suuqa sal uu ku sii socon doono haddana waxaa sameysmay candle kale sal asana wuxuu la sii sameysmay madax kale week kale oo sii sameysmay weekgaas maxay tilmaamay suuqa inuu sal ku sii socdo suuqii sal ku sii socdo haddana week kale oo sameysmay hoos sal ku socdo haddana week kale ilaa wal mar alla marka suuqa laga wareejinaa maxaa ku ogaatay maadaama halkaan oo usoo dheeraada halkaas suuqa haddii halkan awood oo halkan usoo dheeriya oo madaxaas ka leeyahay suuqa sal usii soconaya idin dhah marka suuqa oo isheeg halkan oo kale saan u yaraado waxaa ogaanaysaa dadka suuqa sellerska buyerska soo gali doona hadda tusaale kale suuqan buyerska soo galeen halkaasay gaarsiiyeen way ka bixeen waa awood oo laga la wareegay haddana dad kale sellerska soo galeen isla markii suuqa halkaas ku maray haddana dad kale buyers waa laga sii awood badiyay mar walba ilaa suuqa sel uu kusoo socday waa ujeedaan mar alaala markii aa rabtid inaa ogaato candleka suuqa inuu sal ku socdo inuu buy kusii socon doono waxaa fiirinaysaa candlekan madaxiisa halkuu u dheer yahay halkuus u gaaban yahay inaa ogaato marka waxaa samayn doonaa caawa halkaas kusoo gabagabeynayna cashirkeeni almost waxaa qaadanay 45 daqiiqo hal saac xoogaa waaye
codka idin furi doonaa insha allah qof walba iyo su-aashiisa insha allah codka waa idin furay qof su'aal rabo inuu weydiiyo bas laha ii weydiiyo insha allah qofkii rabo su-aal inuu weydiiyo bas ha ii weydiiyo insha allah الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد okay qofkii rabo su-aal inuu weydiiyo ha ii weydiiyo malii maqlaa له Ustaad waxaan rabaa inaan ku weydiiyo meeqa habeenaan soo gelaynaa Zoom-ka oo la soo gelayaa walaal waxaas oo idil marar ku falanqeyna laakiin hadda kugu celinayna waxaan sameynaa zoomka anaga waxaa soo gali doonaa week ending walba soo gali doonaa labada habeen oo week endiga oo ah habeenka axad soo galayso iyo habeenka isniin soo galayso caawa kale aada umadsan zoomka waxaa rabnaa inaan gabagabeyno 3 isbuuc noo dhiman bas hadda hal isbuuc saano noogu gabagabo laba habeenaan ka qaadanay suuqi bilaa waxaa la si fiican u falanqeynay caawan environmentga ku shaqeyn doona iyo waxyaabaha adeegsan doona toolska baranay habeenka noo soo xigo suuqa oo saano kale zoomka ugu dambeeyo habeenkaas wuxuu noqon doonaa suuqa sirta suuqa meesha ka bilaaban doonto waa qofkii misgareeyo am sorry aa dhihi karaa sababtoo ah waxaa fahmi doona waxa loo yaqaan wax u badan qaadan doona waaye candlesticks tickskii qaabka u shaqeeya inaan fahno suuqan aan ka sheekeynayno aan dhehayno in market structure lahaa trade line see loo saartaa wax ugu muhiimsan waa marka almost hal daqiiqa soo hartay su'aalaha insha Allah soo gagaabay walaal cashirkii xalay qofku dhaafay YouTube aa soo dhigaa YouTube-kana linkigiisa waxaa soo dhigi doonaa ii sheeg Telegram-ka iyo chat-ka qaybta group chat-ka labadaba meesha kasii fiirsada linkiga meesha soo dhigaa cashirkana hadda aa kusii upload gareynaa YouTube kana waa soo dhigaa sidoo kale ما أستاذ المقشع ها walaal loo maqlaa أستاذ هذا أو محسن تاعي عقبات يرنا استحيت تاعي مرك 10 كابلاوي سلينك هراك ما هلنا مرك ما لا سمين كرا جروب واتساب أو أرضي دن